marna malada kuma jirin in wiilka godana uu xamar dafaaye ka noqon doono tanise waa cibaaro ah in maafiyanimadu aysan lahayn daryeel iyo deeq dambe mana la qiyaasi karo nolosha kuwa badan oo haadka cunaya kuwa kooxa loo duuga sida ay u nool yihiin haweenka iyo carruurtii ka dambeeya haddiiba milkiilaha kooxda argagixisada dhacankiisa sidaan u dambaysay cabdifataax axmed cabdi ina faadumo axmed cabdi ismaaciil xirsi waa 20 jir ka mid ah awlaadii uu ka tago horjoogihii khawaarijta mid ka mid ah madaxdii ugu naxariista darnaa ee adduunkan laga diray qarnigan 21aad shakhsi baalmadow uga jira sooyaalka koonfurta Soomaaliya waxaa saan fariir iyo dhaban haysa in 1 September 2014 oo laga joogo qiyaasta 12 sano dilka aabihiis kadib aysan daryeel iyo tarbiya siinin boqortooyadii mala awaalka ahayd ee aabihiis uu shakhsi marti geliyay mid ay wada socdeen uu heeb ahaan u tirsada u dilay cabdifataax hooyadii faadumo axmed cabdi ismaaciil ifkama joogto waxay u dhimatay macaan 2024 waxa uu la noolaa isaga iyo 4 kale adna maxamed guuleed oo aabihiis ku hooyay yihiin halka curadkoodii ugu dambeysay isagoo jooga Jarmalka iskuulka Alqeer ee xaafadda Cakaara Hargeysa ayuu isaga haray waxa uu bartay balwad manaysan ku filneen noloshiisa inta yar uu ka heli jiray maqaaxi uu jooga ayaamo waaheen bustiijada askar group socdaalkii uu ka soo bilaabay ayuu kaga gaari badashay gaalkacayo ilaa uu ka soo degay baar ubax Muqdisho darbiye jiif uu ahaa kadib waxa uu helay caawiye waana hubantiin magaaladan ay tahay martigelisaan u dhutin mid dabrayay mid dhisayaba yeelkadeeda waxa ay qabteen kaamirooyinka amniga isaga iyo Faysal Xaashi Jaamaco inan yar u xoog sheeganaya kana dafay telefoonkeeda gaarka ah raadraac kadib gacanta ciidamada amniga ay soo galeen filashadu waxay ahayd shakhsiyaad isu ekeysiyay ciidamada iyo xarfaan maalintaasi ay ka wareertay meeshii ay ka keeni lahaayeen kista daaqa cooska droogaysan iyo baadi goobka daawooyinka ismoodsiiska godana dhaxal diineed iyo keed hantiyadeed ugama tagin carruurtiisa waana iska nafsi iyo xujo hortaala kuwa weli maaweelinaya carruurta yaryar ee duurka ku hayaan waana wacyigelin iyo xasuus ku filan odayaasha weli nool ee ku naaxay dhiigga muslimka Soomaaliga ah ee aan waxba galabsan mana kala fogaayamaha dhalanteedka iyo xaqaylka inkastoo dhagar qaba dhalay haddana dawladnimadu waxa ay hooyo u tahay ubadkeeda saniyakeeda xun waana meesha ay ka wada helaan daryeel halka argagixisada ay dabka ku shubaan kumanaan ay maanyari iyo duruufaha adduunka uga faa'iideysteen cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka Muqdisho